السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحابتي أرضيدا ولا لا كحرن جنال كبلال يبيش عمر بن قضاء كسول هذا مركله فيديو عصو هي موضوع عصو حدي والله وقلال موضوعنا ما أنت راحوا ينون قندونا وموضوع عادي مهم وحونا أنت بدن دير دصار دونا أرضيدا الصومالية موضوعنا ما أنت وحوي هاي سيدك وقلي كرتا كالنت كوبات امتحان ولبا وعبرشده ما أخان متفضو لكن مر ولبا وحاي وباهانت هاي جهدي يددان تاسيو قبقبدي noqon karto mid guulaysata iyo mid fashil ku dhamaato arday waliba oo ku jiro filka waxbarashada waxa uu galaa imtixaan sanad waliba dhamaadkiis ama kala barkiis taasi oo ujeedadu ay tahay in lagu ogaado heerka waxbarashada ee ardayda wax ku barato gudaha dalkeena Soomaaliya khaasatan kuwa shahaadiga waxa ay galaan imtixaan midaysan oo ay ka qayb galayaan dhammaan ardayda wax ku barato gobolada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho arday waliba waxa uu jecel yahay ama uu maanka ku haya mar waliba inuu noqdo ardayga koobaad ee gala kaalinta koobaad ardayda Soomaaliyeed marka ay soo gaaraan marxaladda waxa ay sameeyaan dadaalo wax akhris badan soo jeed badan ayaga oo rajaynayo inay dadaalkooda ku galaan kaalinta koobaad laakiin ugu dambeyntii waxa ay ku soo ururtaa fashil murugo iyo dhibaatooyin kale oo ugu dambeyntii u horseeda ardayga inay ka haraan waxbarashada maadaama ay xaqiijin waayeen hadafkoodii ahaa inay galaan kaalinta koobaad ee imtixaanka maxay tahay sababta waxaan kula wadaagi doonaa 5 talaabo oo ka dhigayso ama ka dhigayo inaad gasho kaalinta koobaad ee imtixaan waliba hadii Allah raali ka noqdo ku soo dhawo mar kale mawduuceena talaabada koobaad joogta ka dhig wax akhriskaaga ay muhiim u tahay qodobkaani ardaydu waxa ay jiifka ka kacaan ama ay ku soo baraarugaan buugaagta iyo su'aalaha maalmaha imtixaanka laakiin ardayga gala kaalinta koobaad ay wax u akhriyaan si maalinle ama joogta oo waxa ay uu leeyahay caado wax akhrisa marka ardayo ama ardayay hadii aad doonaysid inaad gasho kaalinta koobaad imtixaan waliba waa inaad la timaadaa mar waliba caado wax akhris oo joogta talaabada labaad ogow waxyaabaha ku mashquulinaya ma jiro qof inaga mid ah oo aan mashquul ahayn hadaba isweydii maxaad ku mashquulsan tahay ardayga caadiga ee aan galin kaalinta koobaad iyo midka gala kaalinta koobaad dhamaantood waa ay mashquulsan yihiin laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay ku mashquulsan yihiin ardayga galo kaalinta koobaad ee imtixaanka waxa uu mar waliba ku mashquulsan yahay wax isaga faa'iido u leh taasi oo rasuulkeena Muhammad naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu booriyay wuxuuna ina yiri ihras ala ma yanfa oo micnaheedu ay tahay ku dadaal waxa ku anfacayo ee iskaga tag waxaana ku anfacaynin halka ardayda kale ay ku mashquulsan yihiin ee aan galin imtixaanka kaalinta koobaad mashquulsan yihiin ciyaaro musalsalaad TikTok, Facebook, YouTube, Konami, PUBG iyo waxyaabo kale oo aan u wanaagsanayn naftiisa iyo waxbarashadiisa way talaabada saddexaad ha ku raali noqonin darajo hooseysa marka ugu horeyso waa inaad qalbigaaga iyo maskaxdaada gashataa oo aad go'aan ku qaadataa inaadan marnaba ku qanci doonin aad aqbali doonin aadna raali ku noqonaynin darajo hooseysa mar waliba ka dhig hamigaaga iyo hadafkaaga ujeedkaaga inay naftaada noqoto mid aad u sareysa hankaaga waa inuu noqdaa sida buuraha oo kale midda kale iska ilaali inaad hamigaada iyo ujeedadaada ka dhigto mid aad u gaaban ama mid aad u hooseeya sida waxaan rabaa inaan ku baaso imtixaanka badalkeed waxa aad tiraahdaa waxaan rabaa ama aan rajaynayaa inaan imtixaanka noqdo ardayga ugu sarreeyo ee shahaadiga iskuulka iyo jaamacadda waa saas aad u sarreeya hamigaaga maamaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay tiraahdaa lax waliba meesh ay isdhigto ayaa lagu gowracaa taasi oo ula jeedo guushaada waa inta hamigaaga iyo ujeedkaaga uu la eg yahay talaabada afraad dib u dhig raaxada naftaada qodobkan waa qodob aad muhiim u ah marka aan fiiriyay ardayga gala kaalinta koobaad iyo midka imtixaanka ku baaso ama ku dhaco waxa ay ku kala duwan yihiin xagga raaxada nafta mar waliba ardayga doonayo inuu galo kaalinta koobaad waxa uu dib u dhig raaxada naftiisa waxa uuna diiradda saaraa mar waliba ujeedka iyo hadafkiisa sareynta laakiin ardayga caadiga mar waliba waxa uu ajiibaa ama uu aqbalaa waxyaabaha naftiisa ugu yeerayso ama ay jeceshahay haddii aad doonaysid ardayo kaalinta koobaad waa inaad dib u dhigtaa raaxada naftaada waxa aan ku damaano qaadayaa inaad dib dambe ugu raaxaysan doontid dadaalkaagii juhdigaagii aad soo bixisay talaabada shanaad waqti u dhaxaysii wax akhriska haddii aad akhrinaysid maado 3 saacadood 30 daqiiqo waliba waa inaad u dhaxaysiisaa 5 daqiiqo oo break ama fasaxa iska ilaali
ilaali waa inaadan ka dhigin 3 saac oo xiriira, waayo haddii aad rabto macluumaadka aad akhrinayso inay degaan maskaxdaada ama ay ku raagaan hadhow imtixaanka marka aad u fadhiisato si aad u soo akhrisato, waa inaad waqti u dhaxaysiisaa ama waqti aad gelisaa saacadaha aad wax akhrinayso. aad ayay muhiim u tahay. maskaxdeena waa ay daalaysaa, waayo wax ayaa galo wax ayaana ka baxo, wax ayaa xasuusanaysaa wax ayaadan xasuusanaynin. mar waliba waa inaad isweydiisaa, mar waliba waxaad isweydiinaysaa waan ilaaway su'aalihii maxaa sababay. waad ilaabi sababtoo ah waxaad wax akrinaysay 3 saacadood oo xiriira. mid weligaa ogow, haddii aad doonaysid maskaxdaada wax ku keediso waa inaad waqti u dhaxaysiisaa wax akhriskaaga. waxaan kuu rajaynayaa haddii aad si toosa u fuliso ama si toosa u dabaqdo tallaabooyinkan inay kaa saacidi doonaan ama aad noqon doonto ardayga koowaad ee galo kaalinta koowaad ee imtixaan waliba. ilaahay idinkiis. intaan ayuu ku egyahay mawduucayna maanta. intaan video la mid ah idinkaga kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida amaanaha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.